horta marka hore hadiiba lagu casuumay oo lagaaga yeeray casuumaad noocay noqotaba xafladaha tan aan aroosyada meel walbo adiga qof ku casuumay kuna qadariyay waa wixii uu kugu qadariyay kuguna casuumay markaa inaad ka qaabisho marka ma aha adigoo casuumaad ku timid oo nidaam lagaa rabo inaad ku timaado inaad dalabaad iyo maxaa la keenay iyo aad ka bilowda canjeero Ethiopian ma taalaa basbaaska ma yaalaa maraq ma yaalaa maxay ahayd muufa ma taalaa waxyaalaha ugu daran oo aroosyada ay dadka imaanaya casuumaada kuwa ay sameeyaan waa taas waxyaalo in aan meeshaas xataa loogaga baahnaynin ama markaaba yaala xataa ama aaba la keeninbo ay ka dhigaan maxay ahayday wax ay iska weydiisanayaan sida qof maqaayad imaaday tan aniga aan aad u dhibsaday oo aad iyo la sii xuno waa horta canjeero Ethiopianka way naadiyaan dumarka markay aroosyada imaadaan oo ay leeyihiin canjeero Ethiopian ma taalaa ay ku bilaabanayaan ayada oo arooska cunto walba oo la keenay ay hadhow kasii bixinayaan faallo iyo inuu ahaa aroos xoogaa liitay cuntadiisi ay u sababeynayaan canjeero Ethiopian ma oolin marka aniga canjeero Ethiopian aad ugu soo horjeedaa mana jecli maxay ahayd casuumaad ama meel in aniga aan markaa aan ka ahay inaan ka qaban qaabiyo ama anigu aan leeyahay in la keeno sababtoo waxa anaga leenahay iga badan marka aniga aad uma jecli canjeeradaas Soomaalidana uga digaya in ay iska daayaan oo waxyaalo ay iga leeyihiin aaba ka badanba wax casuumad ku fiican iyo waxaan ku fiicnaynbo waan leenahay cunto intaan dhaqan u leenahay naga badan marka maanta cuntadan ka hadli doonaa canjeerada canjeero Ethiopian si fiican aydan aan uga hadli doonaa kusoo dhawaada bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa cafiifa iyo mar kale channelkeena cafiifa channel kusoo dhawaada dhammaantiin walaaladey waa idin salaamay meel walbo aad joogtaan jimco mubaarak jimco kariim ilaahay maalinta jimcada fadligeeda iyo khayrkeeda hana waafajiyo dhammaanteen ilaahayna inteena dhimatay ha u naxariisto inta dhibaatooyin haystaana ha ka dulqaado inta caafimaad qabtana ha u siyaadiyo dhammaan ummadda islaamka ilaahay ha u gargaaro hana u naxariisto khaasatan ummadeena Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ilaahayna dhibka iyo dhibaatooyinka aanagu isku hayno ilaahay dhexdeena ha ka saaro ilaahayna ha naga dhigo kuwa wanaagga isla garto iyo wixii dadka iyo dalka dan u ah ilaahayna kuwa wanaagga isku garabsado ha naga dhigo dhammaanteen kusoo dhawaada barnaamijkeena talo iyo tusaalo oo maalin walba jimco ah aan idin soo gudbin jiray maanta waa qaybteena cuntada casuumaadaha xafladaha arooska ayadaan ugu soo horqabsaday inkastoo casuumaaduhu ay badan yihiin hadda arooskan kusoo qaadanay tan marka maanta waxay noo maraysaa cuntada iyo qaabaadka aan u samaysano iyo sida badan oo wax uga qaldan yihiin iyo sida ugu wanaagsan oo wax in lagu sixi karo kuna wanaagsan aan idinku maxay tusaaleynayaa wixii talo ahna idinku la wadaagaya maadaama uu barnaamijku yahay talo iyo tusaalo oo wixii aniga markaa aan wanaag u arko aan idinku la qaybsado wixii qaldan aan idinku la qaybsado in wixii wanaag laga dhex saarto insha Allah markuu soo dhawaada dhamaantiin asxaabteyda hore ila socotay aad iyo aad ugu mahadsantihiin inta igu soo biirtay sidoo kale waad mahadsantihiin inta igu soo biiri doonto idinkana soo dhawaada channelka subscribe dhahda gambaleelka furta hore u gala fiidiyoyada kala soo daawada insha Allah waxyaalo badan oo wax laga faa'iido doono aad ka heli doontaan hadii Ilaahay idmo insha Allah marka barnaamijka maanta cuntadaas uu noo ku soo qaadanaya cuntada maxaa aan samaysanaa oo aan wada ognahay qurbo joog hadaan nahay cuntooyinka ay sameeyaan dadka waxaa kamid ah horta koow waa bariiskaas iyo hilibkii iyo muufadii iyo maraqii canjeero Ethiopiankii oo aniga aan aad u jeclayn sida aan hore idinku soo dhawaajiyay canjeeradaas canjeero Ethiopian intaas horta cuntada hore ama casho ha noqoto ama qada ha noqoto laga dhigaa oo raashin oo culus ah oo isla eg ah intaba oo waqti iyo howlna lagu bixiyo waa intaas inta qadada ah aan hadda moosna kareem asagana waa ku dhex jira laga mareebo waa intaas horta qadada xageeda maxay kale oo ku xigay oo macaan ahaa xalwo iyo buskud ay kala maharaan wixii shishumo ahaa wixii kale oo macaan kala ahaa ee cunna dhihin waxyaaladii intii macaan la dhaho cake
intay noqotaba intii ay markaa dadka ay fursad ama waqti u helaan inay soo sameeyaan waa la soo sameeyaa sambuuska isagana lagama reebo intaasoo raashin ah sambuuska xataa waxaad arkaysaa dadka qaar kusoo dara burki waa isagana lasoo dubay sambuuskii oo la dubay xalwadii iyo buskudkii shushumowgii cunkii qumbihii oo laba nooc ah waxaasoo dhan waqtigaa lasoo geliyaa waa la isu keenaa xilliga la soo diyaarinayo oo la cuni lahaana wax adugu waxay noqdaan 2 saacadood iyo wax saas ay u dhexeeyaan oo haddana xilli dambe ah oo xilli habeen ah ay tahay oo cashadaas laga yaabo in la cuno 8 saac habeenimo la cuno macaanka asagana 11 saac noqoto ama kasii maxay ama adigu 10 saac ama dadku say markaa waxa ka dhigtaan wixii oo dhan bay iskula soo xaroodaan maxay ahaydey waqti dambe oo adigu habeenka iska mid ah inta cunto ahna cunto maxay ahaydey markeeda hore habeen ku wanaagsan ma ahayn haddana xilli dambe kuma sii jirto haddana waqtiyada la cunayo aad iskugu dhow yihiin mashquulka ay badinayaan hawsha ay badinayaan nidaamka uu iska qaldan yahay wixii oo dhan ay yihiin wax is ku dhex qasan marka waxyaalahaas oo kale waxaa fiican in wixii la iska kala fududeeyo waxyaalo waxaa jira loo baahan yahay waxyaalo aan loo baahnayn waxaas oo cunto ah oo waqti la geliyay haddana mararka qaarkood aan la cunin oo meeshii cuntadii ay ku beerdarowday ku khasaarto waqti uu ku baxay maxay ahayd aan meelaha munaasabeen ku dhamaato laga yaabo iyagoo sidooda u yaal meesha looga kala tago maadaama ay xilli dambe tahay oo dadku ayba wax cuni karin iyadoo sidaas tahay haddana laga sii daahiyo cuntadaas aad arkayso oo hilibka ah oo bariiska ah sidooda wax ku fiican yihiin inay cuntada kulushahay laga yaabo in maanta duhurkii lasoo kariyey ilaa xilliga asaa lahayaa meel waxaa lasugu tegayaa qabow intaasoo qof cid uma soo kululeynayso cunto oo soo diyaarin karto maxay hilibkii oo asagana iska si loo soo jarjaray waaweyn wixii oo dhan isdhex yaalo oo hadday doonto aysan laba cuninba waa la iska geeyaa miiska waa la geeyaa loo geeyaa dadka cuntada laakiin ma cunaan oo sida badan qashinkii u dambeysaa marka waxaa fiican wax macquul ah oo yar oo wax dhadhan lana ah dadkina oo xilli dambe maadaama ay tahay fudud in markaa dadku ay ku soo fikiraan oo ay soo sameeyaan waxaa tirada badan ay kala reebaan saasa u wanaagsan oo wax fudud ay ka dhigtaan oo macquul ah oo hilibkaas waaweyn hadduu doono waxyaro waxa iska fiican suqaar camal loo sameeyey si fiican loo soo kariyey lasoo nadaamiyey waqti fiicanna loo cuno saasa ugu wanaagsan waxyaalaha in saas loo kala fududeeyo ugu fiican marka dadka xataa qaar ma rabaan qof maxay ahayd isu soo libistay xaggiisa oo soo nadaamsaday makeup-kiisa iyo rooseetadiisa iyo soo marsada dumarka maba jeclaba ay hilibka marka adigana waqtiyaad ku dhumiseen dadka xafladda lahaa maxay ahayd mana la cunin meeshii ku qalaabeen kuna qasaareen marka waxaa fiican cuntadoo kale in la iska hagaajiyo waxyaalaha aan loo baahnayn la iska kala reebo maxay ahayd bariis markuu casuumaad guri lagu sameynayo uu dhaafo uu dad badan isu imaanayo uu yahay wax adigu haddii la sameynayana macquul ah waqti fiican lagu cunayo ku fiican yahay marka cuntada waqtigeeda dadka la siiyo in wax laga bedelo qaabka loo soo sameynayana wax laga bedelo waxyaalo yar yar oo fudud fiican dadku inay ku fikiraan sameeyaana waxyaalaha aan loo baahnayn oo kale la kala reebo dhowr cunto ama 3 cunto oo kala nooc ah xilli habeen ah looma baahnaba hal nooc ama 2 nooc oo wax fudud laga dhigaa uga filan saas aan wanaagsan wax yar oo dhadhan leh quruxsan ka fiican intaasoo kala nooc oo hadhowna waxaa laga digayaa ama dadku ay ka dadaalayaan waa in hadhowta arooskaas la dhaho cuntada saan ay ahayd balow ma oolin maxay ahayd maraq noocaas ahay ma oolin basbaas ma oolin canjeero Ethiopian ma oolin marka waxyaalahaas oo kaleetood ma oolintaan dadka inaa looga qaata ma aha maadaama ayna wixii iyaga danba ay kala hayn iska rabaan inay wax iska sheegaan dadka inay jecel yihiin marka waxaa fiican wax nidaam leh oo yar in la sameysto oo horta moos oo kale laga reebo meesha u tirada badan dadka isugu imaanaa moos uguma baahno maxay hilibkoo kale hilib macquul ah oo si nidaam loo soo yareeyo loona soo kariyo laga dhigto fudud wax walba wax la soo habeeyay tahay sambuus oo kale la iska reebo burkaas oo kale la reebo
waxyaalahaas saqa dhexa looma baahna saliid lagu soo shiilay. macmacaanka waaba iska macquul isaga sida badan waxaa loogu diyaariyaa caagado isaga waxba ma lahan haddii la iska diyaariyo waa iska maalmahaas oo kale waa la iska cunaa farxadaha iyo aroosyada iyo ciidaha isaga waaba wax iska fudud oo hadduu yaalana oo la kala dhowr maalin laakiin waxaan oo kaleetood oo muufalo oo maraq leh oo canjeero Ethiopian leh oo waxaas tirada badan wax macquul ah in laga dhigto wixii aan loo baahnayn la iska reebo oo horta sambuus iyo bur ay meeshaas ka baxaan maadaama meeshan hilib la cunay cashadii aad arkaysa caagadiin la iskula diyaarinayo xalwo iyo la iskula ridayo buskud iyo sambuus iyo bur iyo waxaas wax isqaata ma aha marka total bur iyo sambuus maxay ahaaday moos iyo canjeero Ethiopian iyaga meesha laga saaro canjeero Ethiopian sideeda banaanba in laga saara fiican Soomaalida ay waxooda iyagu ay leeyihiin haddaa canjeero markaas aad xiiseynaysid tii adiga dhaqanka u lehed soo samayso taasaa ugu wanaagsan tan mar walba inaa soo qaadayn horta muhiim ma ahan wax fiicanna ma ahan horta taas ayada ani ahaanteyda waxaan ka ahay dacwo in nala ka reebaan jeclaan lahay maadaama ay anaga wax dhaqankeena aysan ahayn oo aan anaga waxaan dad kale uga daysanay xataa waxa lagu daysanayo wax kala fiican ah wax macquul ah canjeeradaas oo inta la samaynayo oo dhowrka maalin la qaso oo la dhigo oo aragtiin markay samaynayaan aynan niyadda kaa galinba inaad cunto haddana inaan buunbuunino oo aan dalabaad ku samayno oo aan lacag uga soo samaysan dadkii dhaqanka u aheeday oo aan u dabagalno wax quruxsan ma ahan Soomaali haddaan nahay anaga waxeena ma aragno inaan waxeena horumarsano oo aan hagaajisana taasna ma fahansanin waxaan iskaga tilaabsanaa wixii aan aragno in ummad kale ay dhaqan u yihiin aan ku tiigsanaa marka waxyaalahaas oo kale wax fiican ma ahan marka taasna meeshaas aan idinkaga digayaa inaad iska reebtiin maxay martida ayagana waxaan leeyahay idinkuna dad nidaam u socdo noqda oo wixii la idin keeno maxay ahaaday meeshiina ku iibaansada haddii idin la fiicnayn martooda uga agaabsada oo dadkaasna xafladooda haka inay faragelina ama wax xumaan ah u arkina haddii idin la socon waayaan laakiin inaad marka lagu soo casuumo aad maqaayadoo kale la joogto kale aad ka bilowdo canjeero Ethiopian ma la keenay maraq Ethiopian ma yaalaa Ethiopian ma meesha xaflad ku dhiganaaye ma aha waxaas wax nidaam ah mana aha wax fiican wax sida badan aroosadeena lagu arkay marka la dhigaayo iyo xafladaha marka waa idinkaga digayaa idinkana walaaladii waxaan jeclaa aniga wixii aan markaa dhaqan u leenahay in la hagaajisto lana qurxisto lana horumariyo oo aan wax dadka leeyihiin aan looga dhiganin maxay ahaaday loo tilaabsan hadda Ethiopian maanta waxa adiga aad cunto hadduu xaflad dhiganayo iyo hadduu wax kala samaysanayo ilama aha inuu leeyahay maxay ahayd canjeero Soomaali ma taalaa bariis Soomaali ma yaalaa ma ila ahan marka adinkuna waxaa idin dhilaha wixiina ma aragtay iibaansada maxay ahayd horumarsada maxay ahayd ku kalsoonaada dhaqankiina intaasaan idinkana admin isu wadaagaya sida aniga aan u arko wanaagga ay la tahay inta igu fikradana insha Allah inay ila arki doonto iguna raaci doontaan rajeynayaa marka tii cuntada maanta intaasaan nooga dhigayaa waa idin leeyahay cuntada hal iska kala yareeyo qaabka loo sameynayana hal iska fududeeyo bariyahan furugtiga lagu soo daraa oo hataa ay keenayeen waxaad arkaysaa tufaaxii canabkii sidiis isku heesto liintii waaweyn in la keenayo furugti meel hadii la keenayo waa in furugti lasoo nadaamiyey lasoo jarjaray lasoo qurxiyey asagana saasuu ku quruxsan yahay ma aha siduu isku waaweyn in meesha la iska soo dhigo dadkaan maba rabaanbo dad maxay maanta qof rabta inay liin fiifiiqdo inta soo labisatay ama diyaar u ah maba ahanba marka furugtiga haddii ay dadka jecelin inay sameeyaan inay si nidaam ah oo markaa cuntada la cunaayo ay ugu soo talagaleen oo lasoo hagaajiyey lana soo qurxiyey waxaa wanaagsan marka insha Allah intaasaan maanta idinkula soo qaadanaya cuntada sidaas in loo hagaajiyo wixii qaldan laga reebo oo ku badan oo aan loo baahnayn waxaan kusoo gabagabeynayaa maanta barnaamijka cuntada intaas insha Allah qaybta waxaa noogu xigi doonta idin labiska waan qaybta kale kasoo dhigi doonaa insha Allah barnaamijkeena talo iyo tusaalena halkaasuu nooga sii socon doonaa haddii Ilaahay nafta igu simo insha Allah dhammaantiina khayr aan idin rajeynayaa fiidiyogana like iyo share ha ka hilmaamina insha Allah dhammaantiina khayr aan idin rajeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh